haddii miisaankaada ama culayska jirkaada oo ka hooseeyo 18.5 marka la fiiriyo BMI-gaada ama body mass index-kaada wax loo yaqaano, waxaa tahay qof caafimaad ahaan khatar ama halis ku jiro, maadaama miisaanka jirkaada oo ka hooseeyo sida caadiga ah. Waxaana si degdeg ah ugu baahan tahay inaad kor u soo qaado miisaankaada si normalka ama caadiga dadka caadiga ah ugu soo laabato. Marka waa maxay tallaabooyinka ay muhiimka tahay inaad qaado marka aad rabto inaad kor u soo qaado miisaankaada oo aad normal ka dhigto haddii uu ka hooseeyo intii aan soo sheegnay? Kow, marka hore waxaa shardi ah qofka inuu sameeyo wax loo yaqaan check up, oo ah qofka in uu isbitaal tago oo iska soo baaro dhammaan xanuunada ama cudurrada keeni kara in qofka miisaankiisa oo hoos u dhaco. Sababtoo qofka miisaankiisa sabab la'aan hoos uguma dhaco, ama cunto xumo qof ku timid oo cuntada uusan qaadanin ayuu hoos ugu dhacaa, ama xanuun ama jirooyin kale oo qofkaas uu qaba darteed ayuu hoos ugu dhacaa. Marka haddii qofka check up oo soo sameeyo, isbitaal tago, baaritaan isku sameeyo, loona sheego inuusan qabin wax cudur ah, tallaabada labaad oo qofka qaadaya ama qodobka labaad oo fiirinaya waxay tahay cunto qaadashada qofka sida ay tahay. Marka qofka markuu miisaankiisa ka hoos maro sida caadiga ah, waxaa loo baahan yahay in 3 waqti oo cunto qaato. 3daas waqtina dhexdooda oo u dhaxaysiyo wax loo yaqaan snacks ama waxyaabo iska yar oo macmacaan inuu u dhaxaysiyo 3 waqti, maadaama miisaankiisa uu ka hooseeyo sida normalka ah. Marka haddii cuntada ay ka xiran tahayna oo cuntada aadan qaadan karinna, waxaa jira sharoobooyin iyo daawooyin cuntada furo oo la qaato. Dhakhtarka haddii aad la xiriirto wuu kuu sheegi karaa. Marka qofku waxaa loo baahan yahay 3daas waqti inuu cuntada qaato, maadaama miisaankiisa oo sida normalka oo ka hooseeyo. Sidoo kale qofku markuu uu jiifanayo habeenkiina waxaa loo baahan yahay galaas caano ah oo rasiin ah. Rasiin macnaha waxaa ula jeedaa oo aan biyo ahayn, oo sida caano booraha oo kale aad u fiican inuu qofku isticmaalo markuu uu jiifanayo, maadaama miisaankiisa oo ka hooseeyo sida normalka. Marka anaga qof kulma talinayno inuu iscayiliyo oo miisaankiisa cayil oo kale oo ka dhigo, laakiin waxaa la rabaa qofku inuu normal ku soo celiyo oo caadi isku soo caadi dadka normalka macnaha camal oo ku soo laabto oo dadkaas oo la mid noqdo. Marka la fiiriyo body mass index-kiisa ama BMI-giisa wax loo yaqaano. Marka sidoo kale haddii intaas oo sameeyo oo qofka cayili waayo, tallaabada labaad waxaa loo baahan yahay qofka inuu sameeyo wax loo yaqaano calorie surplus wax loo yaqaan, oo qofka wuxuu cunayaa inta normalka in ka badan. Tusaale bariiska daa cuni jirta half, waxaa la rabaa xoogaa inaad ku darsato oo isku dhibto. Sababtan waxay tahay calorie surplus-ka miisaanka ayuu ziyaadiyaa, macnaha wixii inaad wax ku darto waaye. qofka maadaama wixii caadiga 3 waqti ay wax ka tiri waayeen, asoo caano cabay 3 waqti cunay, snacks ka sameeyay, food snacks wax loo yaqaano cuntooyinka fudud oo lagu tusaale oo kale qada marka cunto cashada inta gaar waxyaabo fudud cunaysa jirto. Intaasna soo sameeyay doo miisaankiisa ziyaado waaye, waxaa la rabaa qofka in calorie surplus wax la oo sameeyo oo wax ziyaada ah oo ku daro oo normalka uu cuni jiray xoogaa uu ka ziyaadiyo si miisaankiisa uu kordho. Intaas markuu sameeyay kadib qofku waxaa la rabaa in oo cuno waxyaabaha protein-iska leh sida hilibka, sida ukunta iyo wax la midka. waxyaabaha protein-iska caanaha oo kale protein ayaa laga helaa. Sababtoo protein-iskaas faa'iidadooda waxay tahay waxay ziyaadiyaan ama ay dhisaan murqaha ay dhisaan, oo qofka miisaankiisa kaliya ma aan cadiinta ma aan, sidoo kale murqaha waaye. Marka murqaha hadaysan dhismin, tusaale oo kale bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas oo hadda 3 waqti oo kale inta badan aan isticmaalay, canjeerada iyo waxyaabahaas waa carbohydrates. markii aad rabto muscle-iska murqaha inaad dhisto, waxaa qasab ah waxyaabo protein ka samaysan inaad isticmaasho. Marka waxyaabaha protein-iska laga helo sida ukunta iyo hilibka iyo gaaraan hilibka jiirka iyo waxay dhisayaan murqaha. Sidoo kale qofka waxaa muhiim ah inuu isticmaalo intaas. markaa isticmaasho oo 3 waqti aad cunto aana ka ziyaadiso inta cuni jirtay in ka badan, habeenkii markaa jiifanayna caanaha saa cabto, intaas markaa samayso kadib waxaa la rabaa qofka inuu hurdo badan hurdo, oo tusaale habeenkii oo kale hurdo ku filan hurdo oo soo jeed badan oo san soo jeedin. maalintii oo kale waqtiga duhurkii oo kale xoogaa inuu hurdo
problemski stresski waxyaabahaas inuu iska yareeyo haddii shaqooyin fara badan oo hayana inuu waqti nasiino qaato oo hal bil oo kale nasiino oo qaato sababtoo mararka qaar qofka yacni wuxuu qaadanayo iyo wax ka baxayo oo jirkiisa ka baxayo oo yacni haddee bataan wuxuu isticmaalaya wax jirkiisa ka baxayo haddee bataan miisaan uu ku siyaadayo marka qofku waxaa la rabaa nasiino inuu qaato marka adigoo lagu baaray caafimaad ahaan 100% fiicanta lagu sheegay yacni tallaabooyinka hadda aan kuu sheegin inaa qaaday yacni waxaa qasab ah inaa macnaha miisaankaada oo kusoo laabto normal waa qasab yani hadduu qofku jiranayn tallaabooyinkan oo qaado yani wuxuu kusoo laabanayaa xaddiga caadiga normal ayuu miisaankiisa kusoo laabanayaa inaa fahantaan ayaa rajaynayaa insha Allah taala ashirka intaas ay kusoo koobeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.